Hiro Onoda, askarigii aan marnaba isdhiibin. Waxaa dhammaaday dagaalkii, laakiin waxa uu sii dagaalamayay 30 sano kadib markuu dagaalkii dhammaaday. Waxaa loo daadiyey warqado loogu sheegayo in dagaalku dhammaaday, waase iska dhaga tiray, ismana dhiibin. Waa askari ka tirsanaa ciidamada Japan oo lagu magacaabo Hiro Onoda. Wuxuu ka tirsanaa ciidamada Japan markii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Taliyihiisa ciidamada ayaa u xil saaray inuu soo jaajuuso jasiiradda Philippines 1944. Taliyihiisu wuxuu u sheegay inuusan marnaba isdhiibin. Wax kasta oo dhaco, adiga daraaddaa waan usoo noqon doonaa. Sidaas ayaa lagu dhiirigeliyey. Shaqadiisii ayuu u guda galay. Markii ciidamadii isbahaysigu ay la wareegeen jasiiradda Philippines 1945, asaga iyo 3 asxaabtiisa ka mid ah ayaa kaymaha ku cararay. Mid ka mid ah ayaa isdhiibay oo una laabtay waddankiisii Japan. Dadkii wuxuu u sheegay in 2 saaxiibadiis ka mid ah ay ku jiraan kaynta. Markaas diyaaradaha la kiciyey lagu baadi goobayo Onoda iyo saaxiibkiis. Muddo kadib, Japan iyo Philippines waxay u qaateen in Onoda iyo saaxiibkiis ay dhinteen, waxaana la joojiyey baadi-goobkii. Laakiin muddo kadib ayuu la dagaalamay ciidamo ka tirsan kuwa Philippines 1972. Mar labaad ayay dowladdiisii Japan go'aansatay inay raadiso. Diyaaradaha ayaa la kiciyey oo jasiiradda dusheeda lagu heehaabiyey. Waxaa loo daadiyey warqado loogu sheegay in dagaalku dhammaaday, kuna amrayso inuu isdhiibo. Waa iska dhaga tiray, wuxuuna u qaatay inay tahay khayaano. Intaas kadibna waxaa la keenay dad ka tirsan ehelkiisii si ay ugu qanciyaan inuu soo laabto. Waase iska diiday arrintaasi. Wuxuuna ku sii jiray inuu dagaalamo uuna oofiyo amarkii taliyihiisa. Orod iyo qax iyo dagaalan ayuu ku jiray ilaa 1974 ilaa taliyihiisii u yimaado kuna amro inuu dagaalka joojiyo. Isla markiiba waa ogolaaday, waana isdhiibay. Waxaa lagu tiriyaa Onoda inuu yahay askarigii ugu dambeeyey ee dagaalkii labaad adduunka. Wuxuuna ka faa'iidaystay cafis uu fidiyey madaxweynihii Philippines, wuxuuna u guuray Brazil. Kadibna 1984 ayuu Japan ku laabtay. Wuxuu furay akadeemiyo dhalinyarada lagu baro sida loogu noolaado nolosha adag ee duurka. Wuxuuna dhintay asigoo jira da'da 91 sano. Nabaday asxaabi, assalaamu calaykum.